بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد كسو دhowaad daawadayaal barnaamijkeeni bara oo ku dayo muwaadinkaaga danta guud wax baan ka soo qabtay rubuc qarnigii tagay ee wadanka lagu jiray ee ku dayashada mudan ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo bara oo ku dayo halyeygaga ama halyeeyadaada oo in muddo soo wadnay maanta waxa maaragtay fursad fiican noo noqotay inaanu u tagno cali ibraahim ciise oo ah ganacsatada waaweyn ee reer Somaliland laga wada yaqaano sharqi iyo maqriba maaragtay oo leh company-ga la yiraahdo Waraabe Training and Company oo aanu maaragtay maanta halkan xafiiskiisa ku soo booqanay oo marti ugu nahay dadkii la soo doortay ee maaragtay dadka badan soo doorteen ay yiraahdeen dadkaas danta guud wax ka qabtay iyo ku dayasho maaragtay mudanna aanu hadii biidmayno aanu sida awgeed ugu nimid ayaa markaa hadii biidmaayo aanu maaragtay aanu maaragtay waraysiga la sameeynayna waad mahadsantahay cali soo dhaweyntaada qiimaha leh waad ku mahadsantahay waxaad noo sheegtaa cali halkii aad maaragtay ku dhalatay iyo qiyaastii waqtiyadii aad dhalatay si dadku ku dhageysanaya ay maaragtay wax kaaga bartaan barnaamijka oo dhan baa bara oo ku daya la yiraahdaa barnaamijka waa soo dhaweynayaa dhalasho ahaan anigu waxaan ka soo jeedaa gobolka saaxil waxaan ku dhashay magaalada la yiraahdo Laasada Cawo agteeda oo dadka hore markii berigii hore miyiga lagu dhalan jiray magaalada lagu dhalan jiray dadkeenu waxay u badnaayeen reer miyi waxaan ku dhashay meel la yiraahdo buur la yiraahdo Balaad oo ku taala Sheekh iyo Laasada Cawo u dhaxaysa Sheekh iyo Hudisa iyo Laasada Cawo tuulooyinka labada dhexdooda waxaan dhashay 1960 xageed ku soo barbaartay cali maaragtay ama waay aragnimadaadii hore iyo maaragtay kacaankaagii xageed ku soo kacantay xageed ku soo barbaartay xagee maaragtay aad ka bilowday maaragtay waxbarashadaadii hoose iyo maaragtay cilmigaaga guud anigu iskuulka waxaan ka galay Berbera waxaan ku soo kacaamay magaalada Berbera waxaan ilaa fasalkii saddexaad waxaan dhigan jiray dugsiga hoose ee Berbera markii dambe anigu reer Sheekh baan ahay oo deegaan ahaan aabbahay iyo hooyaday iyo reer koodhami oo magaalada Sheekh ayaanu baacad mushar ku lahayn kaasaan markii dambe u bedesho dugsigii boardingka ee Sheekh baan galay haddana markii aan dugsigii Sheekh boardingka ilaa anigu dugsiga kuma raagin secretary-ga ayaan kaga tagay iskuulkii markaa ganacsi baan u wareegay waqtigii afweyne ee na dhibayay ayaan markii aan dhibaatada afweyne u adkeysan waayay baan ganacsi u wareegay iyo burco iyo miyigeeda inaan xoolaha ka keeno waayahay sidaan horeba ugu sheegnay qof walba barnaamijkan ku soo baxaba waxaan ugu yeedhaynaa haliyey asxaabtii hore rag iyo dumar balahaabana dariiqaasun bay wada mareen marka cali markii aad sheekh maaragtay aad ka tagtay iskuulka aad ka tagtay duruufihii adkaaye wadankeena dowladiisii aad bare maaragtay ay dhalinyarada gaar ahaan ay eeganeysay ganacsiga xoolaha ayaad gashay marka bal nooga bilow bal wax nooga sheeg ganacsiga xoolaha sidaad ku bilowday iyo ra'yigu siduu ku yimid iyo marka xoolaha xaalkooda nooga waran markii dawladdiisii aad bare aan uga baxay magaalada Sheekh waxaan tagay miyiga oo ay ku noolayd hooyaday iyo reerkayagu marka mushar baan ku lahayn Sheekh aabbahay ku lahaa aabbahay dukaankiisii oo la iibin jiray waan iska tagay waxaan bilaabay markaa in aan xoolaha miyiga urursado iyo haraga shaqadayda waxaan ka bilaabay anigu haraga markii hore dabadna haragii baan miyiga ka ururin jiray magaalada Burcaan geyn jiray
markii dambe waxaan markaa raaciyo isla waqtigaa aan raaciyey ariga intaan miyiga ka warsado inaan magaalada Burco geeyo halkaasaan ganacsi ka soo bilaabay xoolaha dabeedna sidaa anigoo sidii u shaqaynaya ayuu dagaalkii ku dhacay dagaalka 88 baa xoolihii oo dhamay ay iga lumeen waxna aan dadku lahaa waxna ay ku marka iska baabeen marka iyaro ariga igu jirtay mooyaan wax laalo wax noo soo haray ma jirin marka waxaan u baxay miyiga intii 88 dabeedna dadku ku jiray dadka jabhadaha ee iska jooga baan ahaa ee dhalinyarada ah ee jabhadaha jooga markii ay 88 aakhirkiisa noqotay ayaan dub bilaabay haddana yabayay xoolihii oo aan halkii ka bilaabo magaalooyinka aan geyn jiray ganacsiga xooluhu hadii biin maayo heerar badan buu soo maray ilaa imika sida u muuqata 40 sanadood wax ku dhow ama ayaad ku jirtay ganacsiga xoolaha bal wax ma nooga sheegi doontaa heerka aad adu ka bilowday ee halkii ugu hooseysay iyo maaragtay sidoo ganacsiga xoolaheenu maaragtay laf dhabarka dhaqaalahana waa lagu tilmaamaa inuu yahay bal wax ma nooga sheegi faa'iidadaynu ku haysano xoolaha dhoofintooda iyo maaragtay ka ganacsigooda iyo hadii biin maayo cid kaaga aqoon badan ma jirto bal nooga waran maaragtay waay aragnimada xoogad leedahay haddaan ku sheego xoolaha horta waa laf dhabarta dhaqaalaheena sideedaba 80% dhaqaalaha dalka soo gala ama dadku ku nool yahay waxay ka soo baxaan xoolaha maadaama ay xoolaha ka soo baxaan waxa weeyaan isha quraha aynu inagu ka faa'iido oo ummadeenu ka faa'iido maaha ninka ganacsadaha xoolaha waxa laga yaabaa dadka ganacsadina inay ka faa'iido badan baan ka helin oo sareeya xarakaad iyo haybad ilaahay siiyay iyo in dadka xajka u iibinaya xoolaha iyo dadka Sacuudiga u dhoofinaya iyo waxaas qofku uu qiimo ku yeesho sababtoo waa ishii dhaqaalaha waxa laga yaabaa dadka inuu ganacsiga xooluhu ummadda Soomaaliland oo dhan ku baro sababtoo nin kasta macaamilayna dhex maraysa marka miyiga haddaad u tagto iyo magaaladaba waxa lagu nool yahay waa xoolaha marka waa dhabartii dhaqaalaha taa sidaa darteed waxa hadii uu wiiqmo dhaqaalaha dalku wuxuu wiiqmay xoolaha hayo ku wiiqmay marka wixii dalka ka soo baxayay 80% waxay ka soo baxaan xoolaha siiba Soomaaliland waxaanay ku nool yihiin xoolaha sababtoo dadkeenu waa xoolo dhaqato malahan beera malihin waxay ku nool yihiin waa neefka ariga iyo neefka geer iyo neefka looda kaasuun baan wanana ka shaqeynaa ummaduna ka shaqeysa dad u fiirsato inta ka shaqeysa maalintii waxa laga yaabaa 1000 qof oo shaqaale ah inay kun qof oo wax iibinaya iyo kun qof oo wax iibsanaya inaan noqotaan inaad macaamilo sameysaan saylad qura marka waa hawl aad u fara badan haliyay cali maalin dhaweyto waxaan wareysanayay nin la ilaa Maxamed Muuse Cawaale oo deegaanka Soomaaliland iyo Soomaaliya aad maaragtay u yaqaana oo hay'adan xaaladaha degdega maaragtay ka madaxa wuxuu ii sheegay inuu xisaabiyay neefka ariga ilaa marka xerada laga soo kaxaynayo ilaa la dhoofinayo inta qof ee taabata ama wax ka hesha ama maaragtay dakhli ka soo galo 24 qof ayuu ii sheegay kan xariga iibinaya kan soo kaxaynaya kan baabuurka kirada ka qaadanaya kan dilaalka adigu shax sidaas oo cajiiba ayuu sameeyay aniguna waa aragnimo gaar ah u leeyahay xoolaha dhoofkooda waxaan ka shaqeyn jiray bangigeeni ganacsiga iyo keedka Soomaaliyeed ee Commercial and Saving Bank of Somalia loo oran jiray qaybta xisaabaha dibadda ayaan ka madax ahaa waxaanan maaragtay si gaar ah ugu xil saarnaa LC-yada xoolaheena loofa ayaan maaragtay runtii ka mas'uulaha waxaanan xusuusanay in balaayiin dollar maaragtay ay ka soo gali jirtay xoolaha dhoofkooda marka dee dowlad baynu ahayn oo hadii biin maayo dee adduunka laga ictiraafsan yahay
oo dee nidaamkii bangiyada iyo iswada haystaan haddii biidmaayo nidaamkii dowladnimo oo dhani markaa haddii biidmaayo xaaladan iminka lagu jiro xoolihii la joojinayo sacuudigii markaa haddii biidmaayo xanuunna lagu sheegayo maraakiibtii haddii biidmaayo la odhanayo meeshaasi meel la mari kara maahaynoo budhcadbadeed baa ka buuxdo oo kiradii laynagu qaaligaraynayo degaankii oo la xaalufinayo oo aan fursad loo siinaynin aynu cadow u noqonnay yacnihii xoolihii ooba sii yaraanayaba roobabkii oo siiba dabargo-ayaba markaa xaaladaha qallafsan ee aad ka shaqaynaysaan ee aad ka hadhi weydeen ee la daba taagan tihiin runtii sharaf iyo wanaag badan baad ku leedihiin bal ka waran qadiyadahaas iniga hor imanaya hareerihiina ka buuxa sidee uga gudubtaan iyo sideed u aragtaa futureka haddii biidmaayo inuu xoolaheenna ku dambeyn doonaan horta dhaqaalaha dalka dhaqaalaha soomaaliya xoolahan dhoofu ka soo baxa ama ha joogaan ama kililka shanaad ha joogaan ama kenya ha deganaadaan ama ha deganaadaan soomaaliya ama somalilan ha deganaan soomaalida oo dhan dhaqaalaheedu xoolahanu ka soo baxa dowladuhu maamulada jira ama somalilan ayay xoolo ugu badani ka dhoofaano cashuur caynkaasa oo ka heshaa ma jirto macnii marka loo fiiriyo dakhliga xooluhu siday tiraday leeyihiin cashuurta dalka inta badan waxaa laga helaa badeecadaha cashuurta ku muhiima xoolaha waxaa laga helaa shaqo abuur iyo wanaag iyo dadka ummadda oo dhanoo wada qadaysay ummadiibay dhaqdhaqaaq dhaqaalaa laga helaya oo shicibkaa ku nool xoolaha ama soomaaliya ha jooga ama etoobiya ha jooga ama kenya ha jooga dhaqdhaqaaq dhaqaalaa laga helaya maalintaasaa raashinka la iibsanaya dadku kala soconaya meel walba oo maraya ta kale haddaan usoo noqdo su-aashaada horta xoolaha waxaa ku gadaaman dhib badan oo aada u badan waxaana jira mucaamarado badan oo ku gadaamanoo ganacsatada carbeed jooga ee ka ganacsada xoolaha dibaddu ay isu dhigayaan waxaa jira dhibo badan imanka dhibta xoolaha lagu joojiyey maaha mid xoolaheenna ka timid caafimaad way caafimaad qabaan way wax walba way wanaagsan yihiin wax allaala wax xoolaheenna ka xun ma jiraan waxaa laygu yidhi xoolaa laga raray xamar xoole markii xamar laga raray waxaa lagu sii mudayaaba rift valley intuu markabka sii saaran yahay ayay ku mudayaanba sida la yidhi iyagii allahoode yani in laga dejiyo jidda xoolaha sacuudiga u furan jeesaan baa xoolaha la geeyey lasoo celiyey waxaa la samaynayaa isagoon lahaynba cudurkaa qabin baa la odhanaya cudurkaasoo qaba sababtahay waxaa isku xidhmay rag madaxa oo sacuudiga ah iyo rag ganacsato ah oo laaluu siinaya markaasi xooluhu aanu competition uga dhicin dhexdooda ee uu asaga uun gaarkiisa dalka uu maxjarka ku leeyahay oo quri uu u shaqeeyo ayuu kuwa kale iska xidhaya markaa dagaal xoog leh oo dadkan masaakiinta ah ee reer miyiga leh iska baaba'aya loogu jiro ayaa jira kii dee taa ku taageerana isagunbaa dee cuqubadeeda qaadi doona waxaan anigu qabaa in xoolaha mu'amaraad lagu joojiyo oo ay dhibtaasu mu'amaraad loogu geystay taasuna ay ka timi nimankaa carbeede xoolaha qaata annaga dhibaatadu dee markanoo qura maahe dhowr jeeroo horaa xoolaa lanaga xidhay mar geeska africa oo dhan baa laga xidhay marna waxaa laga xidhay soomaaliya oo qura marna waxaa laga xidhay markii dambe ilaahay hadda iyo ismaaciil cumar geelaa markii dambe xoolaha furuunkooda ugu horeeyo u furay maxjar ugu horeyntii maxjar u sameeyey dabeedna maxjarkii inkastoo nimankii carbeedee ay ku hoos jiraan oo aanay jabuuti xoolaha macnii dadka soomaalida wax badan kama ilaalintooda wax badan kama yaqaanin nimankii carbeed baa ku hoos jiro oo nimankii carbeedada gacanta ku dhigay maxjarka waxaa samaysay dowladda jabuutaa samayso carabtaas waxba kumay lahayn
dabeedna waxa xooli suucan buu u furay xooli dadkii way waxbay dhoofiyeen way rareen macnii waa la noolaaday markii la dhaqaaqay haddana maxjarkii Somaliland iyo Boosaaso labadaaba waa laga furay markii dambena maxjarray carabtii ka furatay inankana waa tartanka maxjarrada uun waxa xoolaha xidhaya maaha xoolaheenu cudurna ma qabaan dhibna ma qabaan waxna ma qabaan way hal yacle hadii been maayo maadaama sida aad imika aad ka dhawaajisay meeshan xasad ku jiro oo waxaan asalkiisu yahay xasadun iyo la isku erin ay maaragtay ganacsatada ajnabiga ee xoolaha naga qaadata ay isku eriyayaan oo maaragtay hadii been maayo laga faa'iideysanayo maaragtay dhibaatooyinkii dowladnimada naga dhacday iyo duruufo badan oo ina haysta ininku ganacsato ahaan maxaad qabsateen oo maaragtay bilmetelbaba aad la timaadeen oo arrimaha sidaas aad kaga hortagteen oo haddii been maayo markaad iminka dib u eegto aad ku faraxdo oo wixii aydaan faraha ka laabanin oo aydaan uga bixinine aad riixdeen oo yacni ilaa xad maaragtay aad wax fiican ka qabateen bal taa wax nooga sheeg horta xoolaha annagu itaalka iyaga waanu soconnaa macnii dowladda Somalilandna dee itaalkeeda way socotaa annagu ganacsata ahaan maxjarkii ugu horeeyay ee Jaabiri ninkii Jaabiri keenay aniga aadan axmed deeriye ayaa u keenay aadan baradho ayaa keenay Hargeysa oo niri maxjarka in ay dowladda Soomaaliland la heshiiso Jaabiri oo maxjar uu ka dhiso berbera annaga u sababahay taa wixii madaxweynaha markaa joogay Daahir Yaale ilaahay cimriga ha u dhowree uu naga aqbalay xooleyna uu ku tabcay maxjarkiina dhib badan baa ka soo gaadhay ariirayaashii oo dhan baa dacaadiyay dadkii xoolaha lagu kiciyay wax dhib fara badan baa ka soo gaadhay xooli markay furmeenna nin waliba dhinacu ka soo galo xooli maxjarka berbera laga dhoofiyay marka annagu dhibtaa dee intii taagayaga ah mar walba xoolaha la xidhoba dee wuu cararaynaayo waa u hadlaynaayo waa u soconaayo ama carab aanu adeegsano ama madaxda Sacuudiga aan adeegsano ama madaxda dee dalalka aan xiriirka xoolaha geyno aan adeegsanay waa aad baan ugu cararaynaa sababtoo ah waxaanu fulinaa qawaaniin bay leeyihiin dal kastoo carbeed wuxuu naga doonayaa qawaaniin xooluhu ugu tagaan oo sharci ah oo uu doonayo caafimaad marka qawaaninta ayaan u soo qaadnaa dowladdan u keenaa dowladda labada dowladood wada hadla dabeedna qawaanintii halkaas berbera iyo burco iyo Hargeysa intay ku dalbadaan in lagu fuliyo waa lagu fuliyaa marka xoolaha annagu inta aanu ilaalin karro sidii ay u socon lahaayeen oo shaqayn lahaayeen waanu wadnaa taagayo si dowlad ma nihino inaga dee inta badan dhibta ugu weynayna haysataa waa itiraaf la'aanta maadaama aan itiraaf aynaan haysanin xiriirkii dowladnimada ee aynu dee xoolaha ay dowladeenu toos uga hadli lahayd dee si dadba mooyaane toos qaab dowladnimo iyo qaab itiraaf iyo qaab safiir dee midna lama hadli karo Sacuudiga oo kale waxa ma aragtay ilaahay baa mahadle ma aragtay in hawshaas iyo dhibaatada iyo hagardaamada ma aragtay ilaahay inagu guuleeyay oo ma aragtay idan gabcaha ka laabanin oo aad ma aragtay wax badan aad qabateen inkoo danta guud eegaya oo ta shakhsiga halka iska dhigaya marmarka qaarkood oo dee eegaya noloshii inay socoto oo eegaya intaasoo qof inay naga dambayso oo xal isa saaraya oo maaragtay aan waabanaynin dee runtii waa wax laynigu mahadnaqo oo maaragtay alcisi iyo sharafba if iyo aqraba a ku leedihiin wanaagna waan inii rajeynaynaa iyo guul isku duubniduna had iyo jeer maaragtay dee kama soo hadha hawshu marka maxay kula tahay xagga xoolaha future-kan dhow in maaragtay aynu kaga gudbi karno dhibaatooyinka marka ictiraafka laga yimaado
بالمثل بابا لور جيربان مقلين حول الله قلا diyaaradaha la saaro oo isagoo qalan la dhoofiyo maaragtay ama maraakiib la keeno xoolo maaragtay talaagada leh oo maaragtay qalan marka sidee baa aad u arkaysaa ugu fudud ee lagu guuleysan karaya xoolaha waxna waa wax inaga xidhan xagga maaragtay dowladaha waxna waa wax inaga inagu xidhan oo deegaankeenii sidaynu hagaajisan lahayn xoolaheennii sidaynu u dhowri lahayn inaynu maaragtay xitaa ka ilaalino in wax yari ay qaniinaan oo dhaawac ay u keenaan haragiisa ama maaragtay caafimaadkiisa marka maxaa qorshe adigu aada haysaa bilmetelba baad is leedahay sidaasaa xalku noqonaya haddii aan la yidhaahdo future-kan dhow macnihii sida adduunku u isticmaalo xoolaha qalan waa la raraa waana fiican tahay inuu dalkeenna xoolaha aynu sancadan dee ku barbedelo oo aynu xoolaheenna aynu samayno in aynu qallo oo dee dayaarada ku dhoofino hilibkii oo qalan ama container ku dhoofino mutajalaad ka dhigno waxaa ka sokeeya oo taa yaalla oo aan laga bedeli karayn oo ilaahay dhigay ayaa jira taasoo ah in ilaahay u sameeyey markii xaramka ilaahay meesha dhigay wuxuu u sameeyey cid waxaa jira sacuudiga dadka xoolahan lama cuno waxa qof wal oo xaramka taga ku waajiba inuu neef qalo markaa neefkan la qalayo waxa weeyaan xoolahan waa wax ilaahay u dhigay halkan geeska Afrika waa xoolo uu ilaahay xaramka uu sacuudiga ku yaala ugu talagalay markaa tan waxaan u malaynayaa inaan horumar badan laga gaarayn haddaynu qallo 1 milyan oo neef oo ama 2 milyan oo sanadkii laynaga doonayo ayuunbaa kullaba laynooga baahan yahay oo ah in lagu qalo sacuudiga oo nool iyagoo aan qallayn in la geeyo sababta ay neefku waa in kabcada lagu qalaa marka waxa yaala qaacidad ilaahi oo meesha ilaahay dhigay marka anigu waxa ila tahay dadweynaha kala ka waran hadii ma garanaysaa waa loo dhoofin karaa imaaraadka oo kale iyadoo qalan waa la geynayaa iminka waxa socota iminka warshadaha socda warshada berbera ka laga dhisayaa oo dhawaana qali doonta mid burcay ka dhisan tahay de way jiraan warshado jira waxay u baahan yihiin in inagu marihin nidaamkii facility-ga ahaa ee dadkaasu ay wax naga qaadan lahayn ayaynu hayn warshadu waa la dhisi karaa se waa in suuqgeyntii qofkii kaa iibsanayay iyo dadkii kaa iibsanayay aada soo hesha iyo bangiyadii iyo elsiga iyo sidii laysu aaminay waa in la sameeyo sababto hay ariga sacuudiga loo diro lacagtiisa waxaanu ku qaadanaa uun ariga marka la geeyo la iibiyaa un baanu qaadanaa marka malaha bangiyadeennanu dee ma sameeyaan facility-ga noocaa inay xoolihii qofka hantidiisi loo ilaaliyo waa la dhacaayo qof baa wuxuu ka maqan tahay lacagtii maxay ahayd lacagtii xoolihii baa ku maqan ama yaman haata ama sacuudiga xoolihii markii xoolaha la xidhay la dhoofiyey ka hor ayaa weli maqan markaa dee waxa nidaamkan dowladnimo ayaa ictiraafka ayaa wax badan soo korin doona haddii aan la yidhaaho ictiraafka aynu sugayna taa garanay maaragtay xagga ganacsiga xoolaha isku duubnaan xoog leh iyo maaragtay dowlad iyo shicib iyo maaragtay cid walbaba iyo deegaankeenno aynu ka shaqeyno maaragtay runtii wax weyn laga qabtay u baahan tahay ilaahay inagu gargaaro waxaa kaloo cali ku weydiinayaa ganacsigaaga qaybo kale ayaa ka mid a sida shidaalka keenistiisa iyo iibintiisa haddii biidmaa sidoo kale maaragtay bagaashka ayaad keentaa oo haddii biidmaayo isagana aad ka shaqaysaa bal noo sheeg ganacsatada kale ganacsigaaga kale haddii biidmaayo waxyaalahaad ku jirto iyo inta qof ee guud ahaan kuu shaqaysa horta ganacsiga xoolaha ugu shaqaalo badan oo shaqaalahiisu aada u badan yahay sida kan kale ganacsigan bagaashka iyo ilaa waxaa laga yaabaa ka shidaalkana ilaa 20 qof ka shaqeeyaan ka bagaashkana ilaa 10 ka shaqeyso marka ganacsigan kale waa iska waa dee ka ganacsiga xoolaha
ayaa xoolaha shaqaalahoodu badan yihi marka shidaalka waa la keenaa shirkado badan baa keena oon ka mid ahay marka dee shidaalka waraab petroleum baa la yidhaha marka haddii liidmaayo caadigaas shidaalka u dalbanaysaan marka kaalmihiiba haddii liidmaayo aad maaragtay u shubaysa annagu berberaanu ku iibinaa kaalmaha kama annagu kaalma halkan kuma lihini waxaanu ku iibinaa markaanu keeno haamaha ku shubno haamahaanu dabeedna booyaday kaalmuhu soo dirsadaan kaalmahaasaanu kaga iibinaa jimlad markaa ma iibino tafaariiq annagu oo ma lihin tafaariiq xaggan raashinkana annagu anigu raashinka waxaan bilaabay 93gii ayaan bilaabay 93 baan raashinka bilowgiisa rasmiga ah saani u galay marka waqtigii ina cigaal dawladii ina cigaal marka markaas oo dawladina aanay ka jirin dadku iswada haystay raashinka waxaanu ku bedeli jiray xoolaha oo na geliyay bagaashka aniga soo geliyay badeecada iyo xoolaha isku bedeli jiray marka tii waxa imankan nabadan la joogo ciidan iyo raashinka iyo xoolaha aan isku bedelayno ayaa baahidaasaa timi markaa dabeedna waxaanu isku bedelnay gadbada iyo neefkii baanu laba gadbood siisanay ama neefkii iyo gadbad la siistay sidaasaan dabeedna raashinka aanu kusoo galno sidaasaanu ku shaqaynay waa yahay waxaa kalood cali ii sheegtay markii aan sheekeysanaynay inaad maaragtay markii haykalkii dowladnimada aynu halkan horaatameeyadii sagaashaneeyadii ciidanka qaranka la sameynayay maxamed ibraahim cigaal allah u naxariiste in dadkii la yidhi gurmada ee maaragtay haddii biidmaayo gacan libaaxla ka qaatay hawshaasi ee maaragtay ciidankii markii la ururiyey ee hubkii dowladdii loo dhiibay ee inamadii lagu wareejiyey ee aan dowladdiina dakhli markaa aysan lahayn dadkii la yidhi keena oo miiska soo dhiga waxaad haysaan inta cagaha isku taagayso dowladdu ayaad ka mid ahayd bal taa oo maaragtay yacnihii arrimaha barnaamijkani ku dhisan yahay danta guud maaragtay oo maaragtay inaynu u heelanaano danta guud oo maaragtay markaynu danta guud samayno ee aynu garab istaagno tii shaqsiguna inoo hirgelayso bal arrintaa iyadan noo faahfaahi adiga iyo raggii kugula jiray iyo sidai arrintaasi u bilaabantay waxaa ku bilaabmay dowladdiina cigaal dagaal sokeeyaa ku bilaabmay marka waa tii dee macaaridku la dagaalamay dowladda markaa dabeedna dhibbaa soo gaadhay maalmihii ina cigaal wuxuu u yeedhay ganacsatadii markaa joogtay dalka intii maqnayd mooyaane intii joogtay dabeedna ganacsatadii qaar buu jabuuti ugu tegey kuwii jabuuti lacag buu ka soo helay waxa lacagtii yarayd waxaa lagu diray lacagtan somalilaynta lagu soo sameeyey markaa waxaa ugu dheeraa ibraahim dheere ganacsatada lacagta bixisay dabeedna tii anigu markii lacagtii intii ay maqnayd ee somalilaynta aan la keenin ayuu noo yeedhay qoladayadii xoolaha ku jirtay ay dee isku markaa ay isku haybta ahaayeen markaa dabeedna wuxuu yihi war ciidan madaxweyne waa aniga noqday waana tan macaarid igu dhacay xoolihiina dee waa meeshiina dagaal baa ka socda dee dagaalkii maxaa iga taraysaan dabeedna waxaanu ku nidhi anagu dee maxaanu ka taray ma dowlad baanu nahay maxaanu qaban wuxuu yihi waxaanu markaa halkii baa lagu wada hadlay dabeedna halkaa waanu ku kala nimo waanu iska tagno markii dambe ayuu rag ka mida raggii markaa wasiiradiisa ahaa uu aniga ii soo diray dabeedna dhinaca jibraac cigaal baa ku yeedhayo waanu tego waxaan doonaya u yihi ciidanka qaranka ciidan baanu samaynaynaa ciidankaa raashinka inaad siisaan oo ma badnee raashinkaa inaad siisaan
raashinkii sidii baan ku siiyey intii baan ku waday anigu siiyey anigu baa siiyey marka nimankii kala ganacsatada ma waxay ahaan ganacsato yaryaroo may soo kici may u iman mar labaad muu dee halkiiba way isku afgaran waayeen oo way ka tageen dabeedna anigu raashinkii ciidankii baan siiyey wixii aan dee markaa wixii sidii aanoo u siinaya ayaa ciidankii kordhay dabeedna haddana wuu yeedho wuxuu yihi ciidanka raashinkiisa waxaan doonayaa imanka mar hadduu ciidankii kordhay dee in raashinkii aad qaadataan oo iibsataan ganacsato ahaan dabeedna markii hore anuu siiyey dabeedna waan iibsaday markaa wax lacagoo uu hayaa ma jirtee waxaanu ku qaadanay neefka adhiyabaa lacag doolara aanu u saaray dabeedna lacagtii doolarka ahaydee aanu bixinaynay ayaanu nihi adhigaa markaan dhoofisto ayuunbaan ka goosanayaa qiimaha lacagtu ay tahay cashuur ahaan dabeedna warqad buuna siiyey madaxweynaha ka timi customkaanu geysanay intaasoo adhi ah oo intaasoo lacaga oo ciidanku qaatay mid walba ciidanku ku qorayo siiya dabeedna 5,000 haddaan dhoofiyo waa layga jaraa 200,000 oo neef marka lay qoray 5,000 markaan dhoofiyo anigoo 100,000 haya ayaa 200,000 oo kale ilaa ciidankii baa weli raashinkii doonayay haddana 200,000 oo kale lay dul dhigaa dabeedna sidii u soo waday ayaa madaxweynaha nimanka dalka taladiisa haya oo ilaahay ninkaasu ilaahay cibrigiisa ha dheereeye maalintii uu wasiirka maaliyadda loo dhiibay ayuu arrintii oo dhib iigu haysa ayuu bedelay suu nin qura oo raashinna siin kara oo ciidanka raashin siinaya ma jiro arag kan waalan baanu nidhi waryaa mi waashay markaasuu yidhi may hayna aniga ima siin kartaan waayo lacagtayda noogu shub tan xoolaan ku leenay kii baankana wuu la hadlo wuxuu yidhi nin aad warqad wax ugu dhoofin kartaa ma jirto warqadiina wuu jooji haryaarehen dabeedna waanu soo dacwo tagno anigu markaa xafiiskaani ma anaa ugu hanti badnaa dadka hantida kule markaa dowladda markaa axmed baan la dagaalamay war lacagtaydani siyo aanu dagaal xafiiska dabeedna axmed baa yidhi aniga lacagtaada i weydii waxaan kuu qabanayaa 4 biloode 4 bilood baad ku helaysaa ari dambe halkaa lagu dhoofinayaan ma jiro lacagta igu shuba lacagtii uu naga ururinayay ayuunbuu u bedelay inuu raashinkii naga iibsado maalintaasaa laygu qabsaday raashinkii aan weligayba lahaa dabeedna dhowr bilood markaan qaatay raashinkii ciidanka ayaa nin ibraahimyey la yidhaa iyo dhowr nin oo kale oo aanu asxaabnahay ayaa ila qaybsaday dabeedna haddana way wadi kari waayeenoo sidii aan u waday niman aan asxaabtayda ahun baan ku wareejiyey oon idhi qaata marka ciidanka markii waxaan la ururinayay dadkii soo ururiyey ee hantidooda ku soo ururiyey raashinka siinayay raashinka la siinayay oo looga soo qaaday intaas oo kun oo raashin ah oo aan leeyahay ayaan cidina isweydiin cidina aan lahayn oo aan ku daray uun dee waxaa inaan hor ilaahay uga baxo dantaa guud aan ku daray marka muddo badan baan soo waday ilaa muddo 4 bilood 5 bilood ayaan soo waday oo dhibaatadaasoo aan dhibaatadaa u soo galay imanka in uu markii dambe dee inaan dantii guud kala shaqaynayna uu arkay xataa wuxuu noo dirayay reerihii inaanu reerihii macaaridka ku noqday ka xanaaqay isku soo dhaweyno oo keenno oo odayaashoodii oo ganacsatadoodii baanu keennay oonu isu keennay marka waxaanu dhib yar kuma imanay dee rag baa horta la shaqaynayay ina cigaal keligii muuhayn rag baa waxaan soo dhisay oo sameeyey inay cigaal dee madaxweyne waha marka baalashii uu ku duulayay ayaa waxaan horumarkan sameeyey mahadsantii haliyey shaki kuma jiro haddii biin maayo intaana lagu aqoonsan yahay oo tiirka haddii biin maayo dowladina ma dhismi karto ilaa ciidan ayna lahayn ciidankiina markay meeshii yimaadeen madaxweynihii dee qolooyinkiisii dee way faramarnaayeen oo meeshan waxba uguma imanin
markaa garab istaagkaa aada maaragtay garab istaagteed adigu hogaaminayay marka aada hogaaminaysay adigii raggii kalaba dee wax taariikhda inii gala oo dee ilaahayna inaga abaalmariyo ayaa maaragtay dee aan rajeyneynaa. barnaamijkanina wuxuu taagan yahay inaan hadhowto markaad geeriyooto wixii ayna xabaashaada laga sheekeynin oo geeridu wayna dul taagantay aan la odhanin cali haddii biidmaayo sidaas iyo sidaas iyo sidaasuu haayo ee da-yartu ay ku ogaato oo haddii biidmaayo adigoon hor ilaahay dee u qabtay haddana la ogaado inaad tiir ka mida somalilan aad tahay oo isla markaana ogaanshihii aan lagugu daydo oo ayna noqonin maalintaas murugada taagan ee maaragtay xabaashada la taagay inaan lagaa sheekeynin in taariikhda lagugu daro ay ku bartaan. marka waxa aan ku weydiinayaa kale haddii biid maayo adigoo taana aan kugu mahadnaqayo cali ahaan dadaalkaa badan ee 50 sannadood soo socday maaragtay waayo aragnimo badan oo xagga ganacsiga xagga maaragtay dowladnimada iyo xagga xiriirka dibadda iyo waxyaalo badan aada leedahay oo ilaahay kuu saqiray. waxaasi maxaad kula talinaysaa dhallinyaradu ay kaaga dayan karayaan ee aada la timi ilaahay kugu ilhaamiyey aqoontii dadaalkii maxaa ka dambeeya maskaxdaada ee ku riixayey adsaleeda wallahi haddaad qodobkaa iyo qodobkaa u sheegto tiraa warigaga dayda way ku anfaci doontaa dhallinyaradu. horta dhallinyarada waxaan leeyahay manii in qofku wa keeno hamad uu ku shaqaysanayo ayaa muhiim ah. ninkii yidhi wuxuu yidhi ninka dadaala xaaji cabaas uu gaari kara waanu dhaafi karaa. yani haddaad dadaashaan oo waqtigiina u hortaan in istidhaahdaan horumar gaadha qofku uu gaari karaa oo samir uu yeesho inuu waxaan uu ku shaqaynayo uu samir u yeesho dhibaatada ka imanaysa. marka anigu waxaan leeyahay u samra u dadaala dhallinyarada inta macnihii caqliga fayoobi waa in ay ku dadaashaa in ay horumar gaari karto hadday niyaddii la timaado. waxaan waa niyadduunbaa lagu gaadhaa heer. markaa qofku hadduu istidhaahdo waxba gaari kari maysid ama uu gidaar la fadhiisto mijinjaadahoo uu dabeedna ku ruugo taas oo habeenkiina uu ku fikiro inuu wax berri qabsado berrina uu jiifsado wax allaalo wuxuu mustaqbal gaaraya ma jiro. markaa daroogadanna ha la joojiyo ha dadaalaan oo waxaan waa dadaal bay ku imanaysaa ha dadaalaan ha dadaalo oo dadaalkiina ku samra markaa dabeedna way ku guulba idinka gaari. marka waxaad leedahay cali aniga furahaygii wuxuu ahaa maaragtay in la dadaalo in samir lala yimaado in ilaahay lagu xidhnaado in daroogadan iyo waxa qofka reebaya dib loo dhigo inaan la niyad jabin in wadanka la aamino ayaa furayaashii maaragtay haddii biin maayo lagu najaxaya ay ku jiraan inta aynay dabada qabsadaan bad idinkuna taladaa raaca waa caynkaa waxa weeyaan waxaad igaga dayanaysaan dadaalkii iyo samirkii iyo dhibtii. waxaan xoolaha sacuudiga 95 aan u dhoofinayni markab baa lanagu soo celiya kamaanu markabkii lanagu soo celiya haddana kamaanu kii dambaan u dirayna kaasaa la rogaya ka ku xigaaba lagu soo celinaya. markaa khasaaraha badan iyo dhibtaa badan ee naga soo gaadhay waanu u dul qaadanayni dhabar adeeg. marka waxa weeyaan wixii haddaanad u dhabar adeegin oo aydan waxaan leeyahay samirka iyo dadaalka labadaasun isku darsado xagga ilaahayna qabsada mid weliba uu najixi intaasan ku dada iyaguna cararaayo ee dalkoodii aaminila ee haddii biin maayo qadii ku halligmaayo ee yurub iyo meel laga soo maaragtay dadkii lahaa ay khaatiyaan taagan yihiin ay kusii ordayaan maxaad iyadana aada ka odhanaysaa? waxaan leeyahay horta yurub waxba ma yaaliin dalkiina
wax lagu doorsada aanu jirin marka maalinta Yurubna gidaar shaqada ka Oromadi imanka halkan kaga shaqeeyo ayuu ka Soomaaliga Yurub jooga ka shaqeeya hadday suul noqoto suul qoda hadday macni uska bilaacadeed noqoto uska bilaacadeed buu guraa halka ka Yurub jooga halkan ta Oromku kaga shaqeeyo ayuu kaga shaqeeya halkan inuu kaga shaqeeyaa ka wanaagsan oo toodan hagaajiyo sababta dalkeenu inaynu dhisno oo dalkaaga aad ku tabcato oo wax soo saar ka samayso oo aad beeraha iyo biyaha iyo dhul aan lahayn inta aad risq ka raadinayso halkana ka risq badan ka raadi baan qoran lahaa iyada xagga dawladda maxaa hadii bid maayo aad maaragtay iyadana maadaama inta la weydiiyo maaragtay weyn aad tahay ilaahay maaragtay cibriga ku daayay maxaa iyada dawladdeena aan kula talinaysaa dawladda waxaan leeyahay horta wixii intii karaankaaga cadaalad samee intii aad dawlad nin kasta oo loo dhiibo waxaan kula talinayaa inuu cadaalad sameeyo ummadda cadaalad u falo wax ibni aadanka waxa deeqa waa cadaalad wax kaloo deeqa ma jiraan inta inaga dhiman ee dawladnimadeena ka dhimanna dee uu dadaalo raadiyo haddii in dadaalkunba ay ka tahay haddii ilaahay ku guuleeyo waan ka baxay inagoo gabagabadii barnaamijka joognaa haddii biid maayo dhibaatooyinka maanta waddanka ugu weyn cali sidaad ogtay waa da'yarteen iyo maaragtay shaqo la'aan ay ku dhacayso oo maaragtay intaas oo kun oo arday jaamacadii ka soo baxayaan secondary ka soo baxayaan dawladdiina ayna wada shaqaaleyn karaynin ganacsatadii iyo privatekiina ayna wada qaadi karaynin haddii biid maayo baanan maaragtay maanta dadkii ganacsatada ahaa warshado u furaayo oo maaragtay intaasoo kun qof oo shaqaaleynaya iyo dowladnimadii wada socotayna nidaamkii caawinayayna ayuusan jirin ma laga yaabaa in ay ninka ganacsata ahaan haddii biid maayo gurmad labaadoo kala samaysaan oo bilmetelbaba aad xoolahan haddii biid maayo aada dhoofinaysaan haddii biid halkaasay sirtii ku jirtaaye wax soo saarkii iyo wax kordhintii iyo wax dhoofintii halkaasay sirtu ku jirtaaye xoolihii intaad beertaan oo haddii biid maayo aada xeriyo waaweyn aada ku beertaan oo harageennii maaragtay gooni aada maaragtay u iibisaan oo caanihii gooni aada u iibisaan oo arigii miisaan lagu dhoofiyo oo maaragtay intaas oo qof ka shaqeeyaan oo haddii biid maayo dhakhaatiirtii ka shaqo helaan xoolaha oo kuwii maalayay iyo kuwii caanaha baakangareynayay iyo kumanaan arday halka ay maaragtay halkaa ka baxaan oo halkaa maaragtay ceelashii laga taago taa haddii biid maayo mashruucyo sidaas oo maaragtay sidaasoo haabka ma ku haysaan sidaa tiriye xoolaha in aanu beero oo beero waaweyn oo lagu dhaqo aanu samayno waanu ku tala jiraa hawlaheeda qorshaheedana dhawaan inaanu bilownaba laga yaabaa marka shaqo abuurna ummadday u noqonaysa waxa se taalla shaqada qofka shaqada ee shaqaysanaya dhalinyarteena badda isu guuraysaa shaqo abuur horta shaqada haddii qofku shaqaysanayo iminka shaqo suuqa kama waayin dawladdu itaal waaweyn ma laho dee dhaqaalo weyni sooma galo waxaa si jira dee shacabka maanta qofka shaqadoon haddaad shaqo raadinayso ma helaysid nin aan qaad cunin oo balwad lahayn uu yaryahay ninkii aan balwad lahaynba cid baa haysata dhibta haysata dadkii dhallinyarta ah waxa weeyaan balwadda sababta waxay wixii aad wax kastaba uu iska hor istaagaya wixii aad siisaa kuma filla nin qayirayo maalintii doonaya $10 inuu ku qayilo $10 miyuu ka shaqayn karaa meheradaanay ka soo baxay ama $30 ku qayiraya miyaad ku hayn kartaa xafiiskaaga kuma hayn kartid marka waxa weeyaan qofkii shaqadii shalay waxa ay qoladii xamar sheegaysay in $150 lagu qorayo shaqaale ay bankiga adduunku bixinayo innaga haddaad tidhaahdo imanka jaamacadda ka soo baxay waa $150 ku shaqee
kula yaabaya xaween qofkii inta miisaaniyadda imanka dhexdeena taala iyo qarashka uu isticmaalayaaba qarashkeena badan waxaan oran lahaa anigu aan dib isku habayno kharashka oo aan anagu waanu ku tala jiraa taana waanu samaynaynaa beeraha inaanu samayno xoolaha oo lagu dhaqo halkaa dabeedna caanihii iyo haragoodii iyo iyagii in la dhinac walba laga faa'iidaysto soo gabagabaynayna barnaamijkii oo waqtigiisii uu joogo waxaanu caliyow kuugu mahadnaqaynaa mar kale fursadda qaaligeedna siisay waxaanaanu ilaahay ku rajeynaynaa maaragtay inuu ilaahay maaragtay isiyo sharaf kugu nooleysiiyo fi dunya wa fi laakhira sidaasna aada haliyey annaga noogu tahay maadaama dantii guud aada wax weyn ka soo qabatay oo haddii biidma ilaahay kugu simay da-yartana waataanu doonayna inay kaaga daydaan oo haddii biidma shakhsiyadan iyo reerkan iyo kooxaysigan laysdaba ordaayo layska daayo oo loo heelanaano danta guud taas ayaa wanaaggii oo dhani ku jira tan kalead ku soo gebagabaysay ah shaqo inaynu haddii biidmayno wadankeena aynaan waxba ka waayeynin oo wax kastaba aynu heli karno laakiinse loo baahan yahay dhallinyaradii inay maskax ahaan iyo caqli ahaan iyo dareen ahaan iyo asluub ahaan ay diyaargaroobaan oo ay maaragtay u diyaargaroobaan haddii biidmaayo inay haddii biidmaayo ay noloshii haddii biidmaa gamcooda kula soo baxaan oo ay dakhliga iyo kharashkooda iyo caafimaadkooda iyo xoogooda ay u tudhaan oo haddii biidmaayo lagu toosnaado haddii biidmaayo wanaagga aad sheegtay waad mahadsan tahay sidaa laawgeed baanu rabnaa inaanu kugu guddoonsiino shahaado sharaf barnaamijkani uu bixiyo iyadoo maaragtay barnaamijkan aanu rajeynayno muddo badan inuu socdo dad badanina ay kaa horeeyeen ilaa 60 qof ama shirkadood shirkadda waraabana haddii biidmaayo trading companyna guul baanu rajeynaynaa dalkaaga